waxaan qaadanay xaqiiqatan go'aan aad u adag go'aanka oo aanan ogeyn waxa ka dambeeya iyo waxaan kala kulmi doono iyo waxaan arki doono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أدبايني سلامي صاحب بيال دمانتين ملك صودا فيها الدنيا دا أتكجوكتين ويلي يا قبل برتن أنا قدي هنسوا على دقن هذا نقول عصبتهاي سبسكرايب لايك يا كومنتيكو أدي أدبنولي رجليا هذا أنا لجوكتين ومعصنتهاي اللهم وفقنا بما تحب وترضى وحنكسرنا هاي سيدي دبا تاريخ له لما قرأ بل سيدا إسقرته قف كستو إنك مدا وحوليه تاريخ إسقى أوجارا وكسب بالعبنتي من مالنتي ولا شيء إلا إياه مانتا وحنوكسرنا هاي قف كستي وحوليه هاي تاريخ هديت هاي عالمك إيه هديت هاي جي نبه وحن مقلنا هبل وقت جاب ولا شيء أنتي ولا شيء إلا إيه أنت اللي مشيدي ستاريخ بعود حيس تاريخ ذا سنة وحيل هذا هاي تاريخ فرحات هي تاريخ نحدم بله تو حيل هذا هاي راحله iyo tudhi baata bale marka waxaan rabaa haduu ilaahay raado inaan kula wadaago anigu si aad uga faa'iideysatid aad uga qaadatid wixii ka anfaca ka qaado wixii aan ka anficina iska dhaaf inta aan bilaabo waxaan leenahay Allahumma wafiqna bima tuhibbu wa tarda ilaahay qolka saxda ah aan ugu hagaajiyo waxa afkeena ka soo baxayna ilaahay ha ka dhigo waxa uu ilaahay raali ka yahay waxaan ilaahay weydiisanayaa inuu ilaahay igu sugo xaqa maalmaha kamida aniga iyo 5 wiilal قارنا أنا أصحاب هين قارنا أنا صاحب هين وحن قادنا حقيقة قوان آدي وأذق قوان كأو أنا أوين وحكدم بيا يوحن كل مدونه يوحن أركدون نلبقوا لمننا هدو إلى هاي رادو هدف كلمة وقارنا وحيدب يدف نعلق كلنا وقيب تبينا قوان كيجو بلوغي سدابوها وحن كسب بلوني مجالده درلبه مجالده رقنك iyo dadnimada aad iyo aad baan u salaamayaa reer Darrabe iyo nawaaxigeeda haday tahay Shineele haday tahay iyo inta ku xeeran oo dhanba socdaalkayagu halka ayaan ka soo bilownay waxaan ahayn qaar magaalada degan iyo qaar magaalada wax ka barto oo jaamacada ku jira maalinta aan soo bixi doono subaxdeedii waxa uu sameyn karay iyo dadka uu soo macasalaamin karay ayuu soo macasalaamay maxaa yeelay safar ayaan qaadanaynaa safarkaana ma ogin waxa aan kala kulmi doono inaan noolaanayno iyo inaan dhimanayno balse فكر جود ما هنا فكر صح كما هيسنين هل كان أنا صعنه يودد أن قاضينه حقيقة لما أنت يضو لحظة إذا قفبة كما هيسنين فكر رنتك وصليسن فكر رنتك وصليسن وحقيقة كمان هيسنين بس وحنا هيني فكر كجود إذا كأنت أول بدن يودك يكسر بحياة لقوم ماويليو أنا كحقيقة وين أقول عدد تاسي فكر كجود ساعد واحد جوكتا وطبعا كي صبح نمو وقت جارجو إيمانينا ويدو ده هي waan xasuustaa waxaan tagnay suuqa ku yaala magaalada Darrabe suuqa waxa la yiraahdaa Allay baday halka ayaan fadhiisanay waxaan dalbanay fuulkin yar ee suuqna wadooyinka lagu iibiyo kaabaan dalbanay kaabaan ku quraacnay inta waan ka soconay waxaan tagnay faras magaalaha suuqaas isaan taariikhda ku maqlay waxaan maqli jiray hadal hore u baxay waxa jirtay sheeko isla suuqa ku saabsan faras magaalaha marka gabadhu wiilka meesha uu fadhiyo ayay ku meereystaa oo meesha bay kulba tagtaa waqti dambe wahabeenima ayay tagtay halkii kiba arkayo wuxuu ka yiraahnaa hebla maxaa xagan ka soo doontay maxaa waqtigan ku wado ku yiro marka bay tiri foox baan doonayaa bay tiri marka uu ka yiri foox doon hadaa tahay tukaan furan ma weydeene faras magaalaha maxaa ku dhigay fiidka lagu hoyday marka taasina way jirtay halka faras magaalaha ayuu noogu yimid gaadhigii halka ayaan ka qaadanay hadeeta waxaan ku sii deynay halka iyo Addis Ababa ayaan imanay waqti cadceedu ay sii dhacday cadceedu ay dhacayso ayaan Addis Ababa imanay Addis Ababa markaan imanay waxa noo yimiday qoladii magafaha la shaqeysanaysay ayaa noogu yimiday halkii iyagoo taksi wata taksigii baan ugu qaadeen cabaar ayay magaalada nagu dhex wareejiyeen si aan una dareemin ama aan u qiyaasin halkii aan ka soo baxnay iyo halkaan iman waxa naga mid ah qaar waxa naga mid ah Addis Ababa si fiican u yaqaana qaar waxa naga mid ah afka si fiican ugu hadla iyo qaar waxa naga mid ah afka aanan aqoon aan ku ka sidee doontaba ha ahaato markay cabaar ay magaalada nagu dhex wareejiyay ayaan gurina la galiyay guri waxana la galiyay xaqiiqatan macnaha guri diinta ah oo gidaarkiisa magacyo ay ka wada buuxaan
oo wax lagu wada qorqoray dhalin baan ugu tagnay halkii dhalinyar baan ugu tagnay halkii Soomaaliyeed soo dhawaada bay naga yiraahday minikiina waay gurigiini weeyaan soo dhawaada haysmarteynina lagu soo dhaweeyay halka baa la iska fadhiyaa cadeed lama arko guriga lagu dhex jiraa laakiin Addis Ababa meel alli meel uu ka yahay ma garan karo ilaa haddada ma garan karo meel alli meel uu ka yahay Addis Ababa laakiin waxaan aaminsanahay inuu Addis Ababa ku dhex yaalo waxaan u malayn waliba inuuna ka dheereyn meelahan booli ay Soomaalidu degto sababtoo ah yani gaariga uu na wareejiyo cabaar saacad ilaa saacad iyo bar buu gaariga na wareejinay saan u qiyaasin meeshan meel ay tahay sidii doontaba ha aato halkii waxaan ku jirnay 4 maalmood ayaan meeshii ku dhaxaraysnay oonan arkin cadceed arkin marka dibadda aan u baxayno ama daaradda aan u soo baxayno waxaan u baxnaa oo kala haatay waa suuliga 4 maalmood baan ku jirnay markaan 4 habeen meeshii aan seexanay habeenka shanaad uu soo galay ay waxaan loo keenay laba gabdhood ayaa noo yimiday labadii gabdhood aad iyo aad baan u salaamayaa xaqiiqatan waa laba gabdhood adag oo nala soo jabay habeenkii markii gabdhihii la keenay kadib waxaa la go'aamiyay inaan baxayno caawa la baxayo diyaar demo markii horeba diyaar baan anagu ahayn oo waan diyaarsanayn waxaa la bilaabay socod halkii inaan la isdiyaari waan baxnay Addis Ababa intaan joognay Addis Ababa aan ka baxaynay waxaa Addis Ababa intaan joognay 5 gaari ayaan kala bedelnay sababtuna xaqiiqatan waxay tahay oo kala haatay in hal gaari la aqoonsanin gaariga sabab loo kala bedelay sadarka 5 gaari ayaa inta Addis Ababa dhaxdeeda aan joognay ama mini passkii aan ka qaadanaynay Addis Ababa ilaa iyo nageynayay caasimadda Xabashada intaasi kii shanaad ayaa naga saaray magaaladii baan ka baxnay jicid noqonay annaga oo rafaadnay kii shanaad ayaa magaalada naga saaray annagu xaqiiqad aad iyo aad u daalnay dareensan daal iyo rafaad sidii baan kaga baxnay Addis Ababa fiidiyogan maanta wuxuu ku kooban yahay oo kala haatay min Darrabe ilaa iyo Addis Ababa fiidiyogan xiga haduu Ilaahay raaxo waxaan ka sheekeyn doonaa min Addis Ababa ilaa iyo magaalada Matame soo koobayna hada isiraado ka sheekay wixii oo dhan waqti badan fiidiyogan waa dheeraanay waa waqti badan bay qaadanay markaas darteed waxaan rabaa inaan fiidiyo aan soo koobo oo in yar una ka soo qaato marka fiidiyogan maanta inta uu ku kooban yahay fiidiyogan xiga waxaan ku daawan doontiin min Addis Ababa ilaa iyo magaalada Matama ee xuduudda Itoobiya dhacda dalka Suudaan ay la leedahay insha Allah waxaan iga tegaynaa intaan fiidiyogan xiga aan isku iman doono salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh nabaday